sharaf ayay ii tahay runtii inaan idinku soo dhaweeyo dabaaldegaas iyo xafladaas aan maanta u dabaaldegayno runtii aviationka Soomaaliya mudan ra'iisul wasaare guulo fara badan ayuu gaaray sanadkan dhexdiisa ee ugu horeysay airspace upgrade-kii laga sheekeynayay oo runtii muddo dheer qaatay in laga soo shaqeeyo waxaa ku xigtay ayata oo runtii ayaduna koodkii duulimaadyada Soomaaliya oo airportooyinka iyo agencies-ka isticmaali lahaayeen naga caawisay inaan soo celino dalka lagu soo celiyo maantana waxaan joognaa kama dambeystii oo ah dhamaystirkii shuruucdii lagu shaqeyn lahaa technically hay'adda duulista rayidka Soomaaliya ay ku shaqeyn lahayd halkaas waxaa yaala mudan ra'iisul wasaare 100 buug oo ka kooban 19 qaybood oo mataqaanaa shaqadii lagu qaban lahaa hay'adda duulista rayidka dhinaca safety-ga security-ga dhinac walba oo maaragtay technically oo hay'addu ay ku shaqeyso airport nooc walba u saabsan ayaa halka yaala history-ga aviation-ka Soomaaliya uu soo maray waa laga sheekeeyay burburkii dalka kadib runtii dhaawac weyn ayaa gaaray laakiin alxamdulillah muddo kooban oo 4 sano gudaheeda ayaa waxaan ka soo kabanay burburkii gaaray duulista Soomaaliya dhinaca shuruucda regulations-ka ugu dambeeyay waa kuwaasaan hor yaala insha Allah sanadkan intuu soo dhamaa waxaan rajaynaynaa sidoo kale amendment inaan ku sameeyno sharciga guud oo aktiga ahaa duulista rayidka Soomaaliyeed kaasoo lagu dabaqi doono regulations-ka halka yaala iyo habraacyada halka yaala lagu dabaqayo insha Allah waxaan rabnaa inaan xoog saarno hadii Ilaahay yiraahdo horumarinta airportooyinka dalka in rehabilitation lagu sameeyo iyo in airport caalami ah oo weyn ay magaalada Muqdisho yeelato waxa kale oo riyooyinka noogu jira aan rabno inaan ka shaqeyno kamid ah diyaaradda qaranka ee Somali Airline inaan ayadana ka shaqeyno soo celinteeda runtii guulaha badan yihiin waxaan rajaynayaa inay maaragtay sanad walba guul noo daba joogto hadii Ilaahay yiraahdo waxaan u mahad celinayaa dhammaan hay'adaha caalamiga ah oo qayb ka ahaa horumarka aviation-ka Soomaaliya ugu horeysa hay'adda ICAO ayata IOS oo ah runtii kambanigii hawshan nala qabtay dhammaan cid walba oo ka qayb qaadatay ugu horeeyaan shaqaalaha duulista rayidka Soomaaliyeed Maray Axmed Macalin iyo teamkiisa oo runtii u heelan maalin walba inay ka shaqeeyaan horumarka iyo riyooyinka aan hiigsanayno inay rumeeyaan waxaan rajaynayaa inaan maaragtay si dhow aan ku gaari doono aviation standard sare leh oo adduunka oo dhan la jaan qaadi karo mudan ra'iisul wasaare mudan yaali marweyn waxaan haysanaa maanta oo noo diyaar ah shuruucdii oo dhameystiran hawadeennii oo class A u guurto standard ah iyo shuruucdii oo noo dhameystiran iyo shaqaalihii oo runtii u tababaran inay adeegyo sharciyeysan oo standard sare ah ay bixiyaan waxaan u maleynayaa marka waxa noo haray waa wax yar oo dhaadhaada insha Allah dhamaantiin waa inii mahad celinayaa mas'uuliyiinta meeshan ka hadashay wasiirada ambaasadorada iyo hay'adaha nala shaqeeyo kale intaba mudan ra'iisul wasaare wakaaga mahad celinaynaa ka soo qaybgalkaaga dawladda inay priority u tahay aviation-ka Soomaaliya in la hormariyo runtii waa ku faraxsanahay ka wasaaradda ahaana waxaan rabnaa inaynu hiigsano meel fiican oo standard ah inta ka bacdi mudan ra'iisul wasaare waxaan rabnaa inta aadan hadalkaaga remarks-kaaga gelin inaan waxaan rabnaa 5 shahaado sharaf oo ugu mahad celinayno hay'adaha nala shaqeeyay ugu horeyso ICAO inaan siino adiguna aad guddoonsiisid insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo ka bacdina hadalkaaga u gudubno barnaamijkuna intaas ayuu noogu koobnaan doonaa waa mahadsan